جزاء هنيئا للتي صبرت فنالت ودرب المجد أوله عناء لكنا نردد التقدير شعرا ويرجى في مكامنه الوفاء نفاخر فيكم شرقا وغربا بتوعية وأنتن السناء. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo maadada physics-ka ah gaar ahaan chapter-ka la yiraahdo atomic physics duu ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa meeshaan inaan kusoo gudbiyo chapter-ka atomic physics ama modern physics. Modern physics waa physics-ka casriga ah ee la xiriira waxyaabahan radioactive-ka iyo waxyaabaha la xiriira. waxa la yaqaan modern physics. Modern physics ayaa waxaan rabnaa inaan soo bandhigno haduu ilaahay yiraahdo. waxaan ka heli doonaa marka ciwaano aan soo xushay muhiim ay yihiin si ay u kala horeeyaan haduu ilaahay yiraahdo. waxaan ka dhigi doonaa qayb insha Allah si aad ula socotaan maxaa la dhahay qaybta ka horeysa si aad maxaa la dhahay chapter-ka wax aad ugu fahantaan bidinillah al-baari. outline-iska oo ka koobnaan doona waxa waaye waxa history of atom inaan ka hadlo. atomka models uu leeyahay. dad baa soo bilaabay atom maxaa la yiraahdaa intuu ka imaaday qaabku uu sameeysan yahay saynis yahanada way ku kala fikir doonayeen. number 2 nuclear and radioactivity. bu'da nuclear-ka iyo ka falka labada. number 3 natural radioactive series. number 4 application of radioactivity. iyo kan ugu dambeeya shanaad oo ah aan kaga hadli doono interaction of radiation with matter. interaction-ku uu leeyahay shucaaca uu leeyahay matter-ka ayaan ka hadli doonaa hadda marka ugu horeysa. waayahay history of atom aan ku bilaawno. history of atom raggan meesha sawiradooda ka muuqda ayaa maxaa la dhahay ku kala aragti doona iyagoo marba marka dambeeyay aragtida ay soo dhawaanaysay marka soo sayniska soo hormaraba aragtida ay soo dhawaanaysay ilaa marka ugu dambeysay la joogo meesha hadda aan taaganahay. waayahay aan ku bilaawno marka Democritus. Greek hore ayaa marka ugu horeysay aragtida soo bilaabay oo waxay ogaadeen in maxaa la dhahay matter-ku uu ku jiro ama uu ka kooban yahay waxyaabo yar yar waxaana la yiraahdo atom. marka atomic theory proposed on ninka la yiraahdo Democritus wuxuu soo jeediyay wuxuu sheegay ama wuxuu dhahay dhammaan waxyaabaha waa waxyaabo yar yar haddana adag aan qaybsami karin ama aan burburi karin. atomka ayuu ka hadlay wuxuu yiri atomku waa waxyaabo aad u yar yar adag aan qaybsami karin ama aan burburi karin. marka particleska ama saxarada yar yar ee atomka isagu waa hal shay buu yiri kaasoo ka sameeysan qaabab kala duwan iyo cabir kala duwan. wuxuu ugu magac daray marka gobolka yar particle-ka ee elementiga ka sameeysan yahay uu yiri wuxuu ugu magac daray atom. asoo ula jeeda ereyga atom ahna not to be cut inuusan jarjabi karin ama soo burburi karin. waxaa ka mid ah marka waxyaabihii uu soo jeediyay wuxuu yiri atomyadu waxay ahaayeen kuwa yar yar kuwaas oo leh particles adag ama saxaro adag qorobyo kuwaas oo ka sameeysan material isku mid ah walxa isku mid ah laakiin qaababkoodan ay kala duwan yihiin. waxay ka sameeysan yihiin buu yiri particleska atomka particles waxay ka sameeysan yihiin qorobyo isku mid ah ama harba afan material isku mid ah laakiin qaab ahaan iyo cabir ahaan kala duwan. wuxuu yiri atomiska waa infinite in number tir ahaan macayno markastana way dhaqaaqaan waxayna awood u leeyihiin in isku biiraan ay atomyada isku biiraan ay awood u leeyihiin. nin la yiraahdo Aristotle kuma uusan taageerin fikirkii atomic theory-ga uu soo jeediyay ninka la yiraahdo Democritus. labadan nin Aristotle iyo Plato iyagana waxay soo jeediyeen in dhammaan waxyaabaha dhulka cirka maxaa la dhahayay
waxyaabaha hawada ku jira sida dabka hawada iyo biyaha waxaas oo dhanba waxay ka kooban yihiin matter fikirkooda wuu ka yara sareeyay marka loo eego kuwii hore sababtoo ah waxay ka sareeyaan dhanka marka loo fiiriyo philosophy ahaan ay ka sareeyaan labadan Aristotle iyo Plato fikradda atom marka xilliga meesha lagu aasay ilaa 2000 sano qiyaastii ayuu aasnaa oo cid ka hadasha maysan jirin xilli dambe ayaa waxaa ka soo hadlay John Dalton 1803 ayaa wuxuu soo jeediyay aragtidii ugu horeysay ee saynis ah ama cilmi ah taasoo sheegaysa dhammaan walxaha wixii ka samaysan yahay atom wax kastaba matter kasta ama material kasta dunida ku nool sababtoo ah wax kasta dunida yaala waxa la yiraahdaa matter oo matterka saddex uu ka koobnaay ama waa hawo ama waa dareere ama waa adke marka walax kasta marka saddexdaa ah wuxuu ka kooban yahay wiiri atom ay ka samaysan yihiin okay atomka muxuu yahay atomkana waa saxarro yar yar kuwaas oo aan la abuuri karin la qaybin karin lana burburin karin ayuu dhahay John Dalton wuxuu yiri atomyada elementiga isku midka leh way isku eg yihiin exactly way isku eg yihiin atomyada kala duwan elementigoodan ama curiyahoodu kala duwan yihiin wuxuu yiri atomyadu way ku biiri karaan atomyo kale si u sameeyaan walax cusub wuxuu soo xisaabiyay atomic weights oo elementiyo curiyaal kala duwan atomic weightskooda ayuu soo xisaabiyay oo 36 element ayuu soo xisaabiyay wuxuu ahaa macallin aad u daayar wuxuu ahaa colorblind xanuunka la yiraahdo qof qaba oo indhihiisa ama aragiisa kala masaari karin midabada J.J. Thomson ayaa xigay isagu wuxuu cadeeyay atomku in la sii qaybin karo ragga hore waxay lahaayeen elementiga wuxuu ka kooban yahay shay atom la yiraahdo atomkaana ma la burburin karo lamana qaybin karo J.J. Thomson wuxuu yiri atomka waa la sii kala qaybin karaa small parts baa loo qaybin karaa wuxuu ku sheegay experimentii cathode rod tubes uu sameeyay isagu ayuu ku sheegay wuxuu soo daafuray wax la yiraahdo corpuscles wuxuu u bixiyay oo markii dambana electrons uu yiri corpuscles waxyaabaha yar yarka ee shayga ka sii kooban yahay ayaa corpuscles la yiraahdo marka wuxuu dhahay marka kadib dam wuxuu ka yiri kuwa waxa la yiraahdaa electrons wuxuu sheegay atomka inuu neutral yahay marka hore atomka inuu iska yahay neutral يعني بلادنا بويا دحاد mid ah inuu yahay 1897 ayaa wuxuu soo jeediyay plan body model heema la yiraahdo plan banding ka waxa waaye waa caado dhaqameed ama cunto dhaqameed ay isticmaalaan Britishka xilliyada Christmaska waa doorshay yar oo sameeysan waan arki doonaa sawirkeeda oo dhaxda ugu jiraan waxyaabo yar yar marka wuxuu yiri states that waxay sheegaysaa atomyadu mostly consist of badana waxay ka kooban yihiin positive charge atomyadu waxay ka kooban yihiin danab togan ayuu yiri wasujad material wala danab togan ayuu atomka ka kooban yahay kaasoo leh laakiin qurubyo amaba saxarro danabeesan oo maxaa ah taban oo electrons uu la jeedo waxayna yaalaan agagaarka ama dhinacyada positive materialka walaxda togan dhinacyada ay yaalaan wuxuu ku guuleystay xilliga Nobel Prize-kii ayuu ku guuleystay abaalmarinta plan body model-ka waa kana wuxuu yiri wuxuu ka kooban yahay atomka sidaan uu sameeysan yahay plan body model halkaan la yiraahdaa saa uu sameeysan yahay dhaxda waxa kaga jira uu yiri positive kuwana guduudka ah waa positive charge-ga negative-yana way ku wareegayeen buu yiri oo negative charge ah asoo sheegay balambiska kuwan waa bandinka kuwan positive kana waa bandinka kuwan negative kana waa balambiska waa cunno dhaqameed ay isticmaalaan wadanka Ingiriiska waayahay maadaama isuu Ingiriis ahaa kaabo tusaale ka dhigtay Rutherford ayaa meesha soo galay markaa 1909kii ayaa wuxuu sameeyay tijaabo gold foil experiment la yiraahdo tijaabada wuxuu ku sameeyay maxaa la dhahay alpha particle ayaa wuxuu ku toogtay maxaa la dhahay gold foil yani waa bac ka samaysan dahab ee tijaabada ku sameeyay and suggested the following characteristics of the atom wuxuu soo jeeday marka sifooyinka atomka uu leeyahay kuwa soo socda wuxuu ka kooban yahay atomka core
ama nucleus qayb yar oo dhaxdu ku leeyahay nucleus la yiraahdo kooban yahay taasoo ka kooban marka culeyska atomka ama cufka atomka ka kooban bu'dani waxay ka samaysantahay buu yiri saxaro lagu magacaabo protons taasoo leh danab togan protoniska waxa ku wareegsan buu yiri danab taban oo la yiraahdo iyadana electrons laakiin atomka intiisa ugu badan waa meel maran oo sidoo yiri hol adag ayuu qabtay oo ahaa hol adag uu ka qabtay maxaa la dhahay radioactivity-ga ama ka hafalka oo maxaa waay wuxuu sameeyay alpha iyo beta particles saxaro alpha iyo beta ah iyo fallaaraha gamma wuxuuna sheegay ama waxa lagu sheegay isagu inuu yahay father of nuclear physics aabaha nuclear physics wuxuu ku guuleystay Nobel Prize wuxuu laakiin ninkani Rutherford wuxuu arday u ahaa ama waxa macallin u ahaa J.J. Thomson waa kana marka experimentigii uu sameeyay wuxuu sameeyay beamkan alpha oo ka imaanaya shaygan ka hafalka waa radioactivity source shayga hafal sameynaya ayuu waxa ka imaaday alpha particle saxar alpha ah wuxuu marka ku dhacay wuxuu ku garaacay ama ku toogtay particle gold foilkan kadib wuxuu rabay inuu ogaado su'aashu isweydiinaa waxay ahayd alfada sidee bay noqon doontaa markay ka gudubto gold foilkan gadaasheedana wuxuu dhigay screen fluorescent screen ama muraayad yar oo maxaa la dhahay dhalinyaro oo fluorescent ah ayuu dhigay waayahay wuxuu ku eegayay marka microscope waa kan view microscope baasha microscope-ka ama weyneysada eegaysa maxaa la dhahay alfada particles-ka lagu eegayo iyaduna waa tana okay microscope-ka ayaa caawinayay kadib ninka wuxuu ogaaday in alpha particles-ka si toos ah ay u dhaxmarayeen bacdii dahabka ahaa ee dhaxda uu dhigay hayeeshee wuxuu u fiirsaday in saxaradaha qaarkooda particles-ka qaarkooda ay ku leexanayaan xaglo waaweyn waa kana sida u jeed mid dhanka aadaysa C iyo tan dhanka aadaysa xag mid dhanka aadaysa mid dhanka aadaysa si toos ah inaysan u aadin fluorescentii la sameeyay inaysan toos u aadin oo xaglo waaweyn ay u leexanayeen ayuu u fiirsaday oo arkay halkaasna Rutherford wuxuu ka amba qaaday heemaalkiisii dhismaha atomka wuxuuna beeniyay heemaalkii ama modelkii Thomson uu sameeyay J.J. Thomson oo ahaa macalinkiisa Rutherford wuxuu heemaalkiisa ku sharaxay in bu'da togani ee bartamaha atomku kaliya leexin karto ama didin karto saxarada togan ee alpha marka ay sinqaan ee ay ama ay u dhawaadaan wuxuu kaloo ku cadeeyay heemaalkiisa in atomka badankiisu madhan yahay uu eber yahay bartamihiisana bu'da cufani tahay electronaduna ku dul wareegsan yihiin qaybta dhaxan wuxuu yiri way cufan tahay waxaana ku dul wareegsan electrono wuxuu yiri xooga isjiidashada wadaaga ah ee u dhaxeeya bu'da iyo electronada ayaa electronada haya kuna dul meeriya bu'da atomka waa ka marka wuxuu dhahay xooga xooga isjiidashada ee u dhaxeeya bu'da iyo maxaa la dhahay electronada ayaa electronada ku haya inay ku wareegato bu'da atomka waayahay waxa la yiri marka heemaalka waxa lagu suureeyay ama uu u eg yahay habdhiska meerayaasha hab qoraxeedka ama solarka ninka marka wuxuu leeyahay Hypatis Rutherford ayuu lahaa wuxuu yiri atomku wuxuu la mid yahay ama uu qaab og yahay solar systemka qaybta dhexe ee atomka waxa ku wareegsan buu yiri masaafo fara badan oo negatively charged electrons ah ayaa ku wareegsan wuxuu yiri waxa kale uu yiri inta ugu badan atomku waa maran yahay sababtoo ah atomku ma ahan adke size-kiisa ama cabirkiisana aad ayuu u yar yahay markii loo fiiriyo nucleus-ka atomka cufkiisa ama cufka atomkana waa concentrated in nucleus wuxuu soo aruuraa nucleus sababtoo ah maaska electronadu aad ayay u yar yihiin marka la balbar dhigo maaska nucleus-ka protonka iyo neutronka maxaa la dhahay nucleus ku jira protonka iyo neutronka nucleus ku jira markii loo fiiriyo maaska electronadu way yar yihiin oo waxa aad u waaweyn
protoniska iyo neutroniska ku jira nucleuska ama bu'da. Rutherford inta ayuu kusoo gabagabaystay isagana. kadib waxaa soo galay nin la yiraahdo Niels Bohr 1916 ayuu wuxuu soo jeediyay Bohr electronadu waxay ku socdaan bu'da dhinacyadeeda ay ku socdaan nucleuska ay ku wareegtaan nucleuska atomka iyo electronadu ku wareegtaan iyagoo si wareegasho sameynaya amaba meel marin cayiman maraya. wuxuu ku sii daray marka wuxuu yiri electronadu way boodi karaan meel ay level ay marayeen ama cabir ay marayeen way ka boodi karaan mid kale ay tagi karaan waxayna ku xiran tahay tamartooda ama energy-gooda ayuu yiri. wuxuu ku guuleystay ninkaana aragtida darteed wuxuu ka guuleystay Nobel Prize. wuxuu ku shaqeeyay marka worked with Ernest Rutherford ayuu ku shaqeeyay. Niels Bohr model waa kana marka wuxuu dhahay electrons orbit nucleus in circular paths fixed energy. waa kana waa levels kan level waa shelliska n1 n2 n3 waa marka waxa dhici karta marka inay waxa la dhahay ku soo dhacdo energy inuu ku dhaco atomka. markuu ku dhaco wuxuu sii deynayaa photons kaasoo energy wata banaanka loo soo saarayo. marka wuxuu dhahay marka kan markuu energy helo wuxuu awood u yeelan doonaa marka asigoo energy-giisa ay ku xirantay inuu midkan koowaad ka boodo midka labaad kan saddexaad uu tagi karo. fikirka ayuu soo jeediyay Niels Bohr model ama heemalkii Niels Bohr. Erwin Schrödinger 1926 wuxuu sharaxaad dheeraad ka bixiyay dabeecadda uu leeyahay electroniska atomka ku jira isagoo sheegay marka in location-ka dhabta ah electronku aan la sheegi karin. saadarteed wuxuu yiri waxa aad ugu wanaagsan ama aad ugu saxsan in la muujiyo electroniska regionskooda oo lagu magacaabo electron collides. waa meelaha electronada ay u muuqdaan in laga heli karo. wuxuu qabtay shaqo aad u adag baa la yiri ninka wuxuu soo saaray wave formula Schrödinger equation la yiraahdo wuxuu ku guuleystay isagana Nobel Prize abaalmarin ayuu ku guuleystay. wave modelka waa noocan buu yiri meelaha ay u muuqdaan in electroniska laga heli karo ayaa wuxuu u bixiyay marka electron collides. ugu dambeyn James Chadwick ayaa wuxuu isaga gartay baa la yiri in atomic mass-ka most elementyada badankooda uu yahay atomic mass-kooda in la helo hadii la rabo inay tahay in la laabo ama laba lagu dhufto numberka protonka. wuxuuna soo daafuray neutron ayuu soo daafuray 1932 ninka wuxuu la shaqeeyay baa la yiri Manhattan project uu ka shaqeeyay waxa kale oo la shaqeeyay Ernest Rutherford wuxuuna ku guuleystay Nobel Prize. waayahay halka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo casharkeeni video waxa insha Allah taala waxaan kusoo bandhigi doonaa nucleuska iyo isotopiskiisa iyo waxa aan kaga hadli doonaa haduu Ilaahay yiraahdo. waxaan rajaynayaa ardayay inaad ka faa'iideysan doontaan biidin Ilaahay baari. billahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.